بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضاضيال وبرنامج الصبح دوني إنه هدي إلهي ممرشن يقولن كان تلفزيون كقارنكا إنه كوضح حلنا وبرنامج هالكل جيسوي هاي بقول شاكو يشاكو waxaa laga yaabaa qaar kaliya dhageysan jirteen daawin jirteen barnaamijkii loona jiray konton sheeko iyo sheeko isagii in baanu ballaadhinay oo ka dhignay 100 sheeko iyo sheeko waxay radda dulqaadataan qadar sabritaan iyo radkaysataan allana iyo hawaan hubaa ila haqa beel doontaan marka shaqada ka timaadaan idinku daashan fiisku ku soo hoyataan aqaladiina idinku madaxa xoqanaya basaaradda jaabka ka cabanaya hadal haynta naxliga siyaasadda iyo qabyaaladda ka soo hidigay ardo garfuurka taagaya laga yaabo qaarkiina geedkan shaydaanku dadka u macaaniyay jaadka inuu soo cunayo inay maqaansan yihiin aradaha kula dhicina carruurta iyo dumarka dhageysta sheekadan oo daawada telefishinka qarankana kala socda laba kamid ah hadaa maqashaan idinku qoslaya saaxda hadii kale buugga soo iibsado akhrista 100 sheeko iyo sheeko hay ka digto tensionka iyo caraduba dawada ana hayo dhaqtara waxaan billahay hanaga tagina وتلفزيون قرنكا يا برنامج 100 sheeko iyo sheeko iyo daafurkiisi iyo balowgiisi dad badan baa markaan magaalada marayo daawadayaal u weydiiyay su'aasha sheeko kaaban baad wadaaya miyaan mar sheeko dheer gaaray aan ka jawaabo taasi haddaba barnaamijkeena way ku daafuraynaa aan isla fahanno marka hore sheeko gaaban waxay tahay raallihaayga ahaade ragga iyo dumarka su'aasha ay weydiiyay waxa la yiraahdaa habar dugsi fadhida lagdan wax uga fudud sheekada gaaban falkinteeda qorinteeda abuuristeeda iyo isku habeynteedu way ka adag tahay sheekooyinka dhaadheer laakiin barota marka hore aanu isla ogaano sheeko gaaban waxay tahay sheeko oo dhami waxay u kala baxdaa qoraalkeedu ama ka hadalkeedu iyo tabinteedu baa saddex nooc mid waa sheeko gaaban oo leh short story novelita waa sheeko dhexdhexaad iyo novelka waa qisada dheer sheekada gaaban baynu ku saabsanay hadaynu hadda xubnaheeda iyo qaabkeeda gallo ka bixin mayno way nagu dheeraanaysaa bal astaamaheeda ku garantaa sheekada gaaban adii sheego ragga qoraya kuwiina dhageysanaya iyo kuwa tabinayaba sheekada gaaban astaamaheedu ama xubnaheedu way badan yihiin oo nin loo oran jiray Aristotle oo filosof ahaba qorayo liho elements of short story ama xubnaha ay ka kooban tahay sheekada gaaban sida baabuurka oo kale wax wali xubna leeyihiin xubinta ugu muhiimsan ku garan kartaa waxay tahay shakhsiyaadka sheekada gaaban waa hal waji waxa la type character haddii aad ka sheekeynayso foolxumadiisa oo sheekadu foolxumo ku saabsan tahay u geli maysid qoyskiisa carruurta uu dhalay xaaskiisa aqalka uu degan yahay hooyadii magaceeda waxaa gelimaysa haddaanay foolxumadiisa kaabayn waxaa qolaad ka sheekeynaysaa qaybtaa kaliya ee aad ku muujinayso foolxumadiisa qofkaad ka sheekeynaysa hadduu geesi yahay oo sheekadu geesinimo ay ku saabsan tahay u geli maysid dherarkiisa ballaadhkiisa cuntada intuu cuno halka uu seexdo reerka uu yahay magaalada uu degan yahay dalka waxaasoo dhan geli maysid waxaad gelaysaa un sheekadaadoo dhammi ay ku arooraysaa ninkaa geesinimadiisa deeqsinimada sidaas kale quruxda waxaad ka hadlaysaa waa halkaa weji nuuciisa kale u geli maysid way adag tahay markaa si aad u xoose geliso shakhsiyad hal wejiya waayo novelka waxaad galaysaa waxaad leedahay wuxuu xidhan jiray kabcad subax jimcaha dhal cascas maalinba waxbaad sii qoriska bayn kartaa laakiin sheekada gaabani intaasi ku wareegaysanaysaa waqtiga ay socotaa wuu gaaban yahay laakiin haddii si fiican loo qoro way xiiso badan tahay intaa haddaynu isla garanno hamoodina sahal sheekada gaaban murtida inta badan iyaday raacdaa aynu galno haddaba si aynu uga boganno taariikhda sheekadan gaaban waynu geli doonaa kuweeniye bal adduunka iyo sheeko gaaban afka Soomaaliga taariikhdiisa qoraalkiisu waa shalay laakiin sheekada qoran baynu sheegaynaa weligeed ba sheeko gaaban way lahaan jiray laakiin qoraalkooda waa laynagu horreeyay nagu dafarteen waa shalay afka Greek-ga dawladda Greek-ga loo qaataa inay xagga qoraalka marka loo noqonayo ama suugaanta leeyahayada ugu daaweyn sheekada gaaban ee u horeysay adduunka ee la helo iyadoo qoran waa sheeko Greek laga helay laakiin nasiib darro ninkii qoray lama yaqaan sheekooyinka gaaban ee Greek laga helay ugu da'do weyn waxa la yiraahdaa Marwadi Athens ومركز الصومالي كانوا يقولوا بتلي لكن إنجليش كواي كو قرنتي واحد يقول لها the faithful wife of Athens لبضع إلى faithful wife الصومالي كان مرون بيسكون نقوليان حتى أصير رعدنا ومرودي رالية هايت Athens
marwadii raalliyada ahayd ee Athens inan ayaa magaalada Athens isku guursaday. Athens markaa laba boqortooyo kala qaybsan bay oo waxa loo jiray Sparta iyo Athens oo Greek laba dal bay kala ahaayeen oo jasiiradaas laba ay u qaybsanayd laba boqortooyo kala loo jiray Sparta iyo Athens maanta waa dal kaliya oo Greek qaybtan Athens ee caasimadda Greek maanta ku taal boqortooyadeeda oo Athens markaaba caasimadu tahay ayaa qoys yar oo nin dhalinyaro ah iyo afadii inuu guursaday ayaa dadkoo dhan hadalay waxa lagu xaman jiro lagu hadalay wanaag bay qoys iska raali ahaayeen intaasi aad isu jecel mar qura aan la arag iyagoo soo caroonaya iska daa iyagoo wada hadlaya farxad iyo had iyo jeer kuwada nool iyo nool macaan qoysaskii jaarka ahaa ilaa magaaladii oo dhan ilaa boqortooyadii waxay u soo qaateen tusaale raalinimada iyo waliba xaasulwaalnimada inankiina waxay u bixiyeen ninkii u xaasulwaalsanaa ee wadanka inantiina afadii u raaliyaysanayd reerkii baa la wada majeertay sheekadii waxay socotay markay muddo isqabeen ayaa waxaa soo baxay dadkii inay isweydiiyaan tolow labada qof ee sidaa isu jecel ee isu daacad ah haddii maanta ilaahay u keeno wadkii oo midkood geeriyoodo ka kale siduu yeeli halkaa bal sheekada igu haya aanu sii dhexgal ee caadooyinka markaa Greek iyo qawaaniintiisa waxaa ka mid ahaa ma jirin jeelkan dadka lagu ridaa ma jirin maxkamadahan ay maanta haysanaa geed baa la isku xukumi jiray ninka lagu caddeeyo inuu burcad yahay qaadica dariiq ee dadka dariiqa ku dhaca waxa sharciga markaa Greek ahaa in la dilo hal dili waxa xeerkaasi qorayay inaan la aasin meedkiisa ninkii markii la dhigay qabrigi markii la dilo waxa la dhigi jiray qubuuraha nin askari ay ilaalin jiray haddii ninkaasi laga xado meedka oo dadkii ehelkiisa hadee la dhowran maayaan meedka wadada yaal haday helaan way aasayaan la aaso askariga la dil jiray xeerkaan ay xusuusta markaa iyadoo halkaa arrintu ay tahay ayaa waxaa dhacay dadkii afka ku hayeen qoyskii ay lahaayeen tolo maxay yeeli haddii midkood dhinto ayaa inankii tii alla u timi waa inankii inantiis jeclaa waa la filayay nabaraad filis wax kuma yeelaa la yidhi inantii baa qabrigii laga soo dulqaajin kari waayey maantii la aasaa gabalku ugu dhacay ma labaadii baa sheekh iyo shariif ba la isugu tegey nin weyn iyo niyarba ehel iyo qalaababa asxaaba jaar cid walba la hadasho waa diiday inay cidba jawaabto halkiiba uuhin kala goyn weyso magaaladii iyo boqortooyada mitacsi galeen iyo murugo hadal kalaba waa la dhigay inantii ka warrama mooye ayaan daro dul fadhiday qabriga waxa ka sii daraa cuntoo dhabay diiday iyo biyaba maalin saddexaad iyadoo maraysa oo dadkiiba dee wax wada hadlaba la waayay wax qosol iyo wax isalaamba oo murugay gaadhay boqortooyada dhan ayaa nin burcada la qabtay oo qaadaca dariiqa ninkii baa la dilay meydkiisii baa la dhigay halkii ay inantu ka baroonaysay agteeda nin dhalinyaro askari ah la yidhi ilaali ninkii baa inantii u tagay waa sheekeeda u hayay inantii cabbaar markuu la hadlayay waabay aqbashay inay wax cunto dadkii oo dhan baa farxay waxaa la inantii cuntadii ogolaatay waxbay cunaysaa laakiin waxay diiday qabrigii inay ka dul tagto ninkii baa la sii hadal waaba intaasi qabrigeena ka tagtaa ku maqashaay waxay ku wada hadlayaan dadku ma ogaa laakiin ninkii way maqashay habeenkii baa gabalkii isugu dhacay iyagoo isna uu ilaalinaya meydkii iyana ay qabrigii dul fadhido haasaawihii sheekadii dhex maraysa ku ilduufayoo intii uu ku maqnaa intii la hadlayay ayaa meydkii laga xado laasay subxii markii waagu baryu arkay meydkii on meesha ol isagiina waa la qabto waa la dilay halkii baa lagu aasay inantii waxay bilowday baroortii iyo cuntadii inay joojiso magaalada dhan bay isu timi walla waadiga shalayba cunay ninkii maqlay alla yarxame in haddii maanta uu kaa dhaadhiyana deena maqalo inankii hadduu dhintay oo kan dambe aad maqashay dee walaa cuntaadii iska cuno yaa kii horeba u ooyey tiri kii horeba iyo u ooyaya marwadii Athens waa sheekadii labaad iyadoo qoran la helo geesiga cagaaraaba liya afka ingiriiska ku qoray sheekadaas iyo ayaan daro iyana lama hayo ninkii qoray markaan turjumay geesiga cagaaran waxa ka soo turjumay the green knight baliya ku dhigeeda waa geesigii cagaara ama dooga wayga arare
si ay sheekada u fahantaan sheekadani waxay ka sheekaynaysaa xukun la oran jiray ama boqortooyin adduunkii hore jiri jiray oo la oran jiray feudal system oo noocyadii la isu xukumi jiray ahaa oo boqorku awoodda ilaah baa awood leh awoodda dalka oo dhan haystay dadkuna addoon baabay iska ahaayeen beasts baa la oran jiray dhulkana ilaah baa leh boqorkaa lahaa boqorkana waxaa loo yaqiinay dowladaha kristanka in ilaahay soo magacaabay subxaana casa wajal oo qofka boqorka ka hortaga qof buu ahaa gaaloobayba xukunkaa adag baa jiray beriga ciidamada boqorku markaa may ahayn ciidamadan hadda aynu haysanno ee saraakiisha kale leh ee mushaharka qaata ee xeryaha degan waxay ahayn rag marka dagaal dhacoon boqorku u yeedho oo la yaqaano oo degmooyin ama qabaa'il ka tirsan ragga waxaa loogu magacaabi jiray geesiyo oo darajo boqorku bixiyeedo la night tababarra way qaadan jireen joogtaa hubka ay ku dagaalamaan wuxuu ahaa birta waranka tooreyda seefta gaashaanka gaadiidkooduna faras buu ahaa waxay gashan jireen bahal inagu aynaan af soomaaliga bir ka samaysan oo af soomaaligeenna aynaan lahaan jirin carabiga inoogu dhubay diric baa layaan waa koofiyad bira iyo shaadh bira oo seefta ka celinaya iyo waranka markaa hub markaad aragto nin sita koofiyadda indhuhu daloolaana dee la arkayn iyo birtaa iyo waxaa iyo faraskan iyo tababarkiisa iyo xooggiisa waa geesigii waa ciidamada nin safaroo galab maraya tuulooyin ka mida dalkaasi ingiriiska ayaa wadiiqa yar oo kuwa fardaha ah wadooyinkan waaweyn fardo mari jireen dadka lugtuun bay hayde wadiiqada isagoo hayo isna faras saaran ayuu wuxuu ka arkay liqabatay faras ninkaa uu saaran yahay geesigii ee birta xiran oo leeb aad muddo soo socdo ninkii wuxuu ka baqay faraskaasi inuu jiro wuu intuu joojiyo wadadii dhinac uga yara leexdo faraskii wuxuu soo hardafaba markuu u soo dhow yahay ninka xakamay qabtay way salaameen labadii nin garoo ninkan dee safarka isaga wejigiisa waa la arkaa kan kale birtii buu xulan yahay haad markaa haybe idhow dalooleen salaantii markay dhammaysteen buu arrinka argagax ku ritay ayuu ninkii weydiiyey ninkii birta xidhnaa ee geesiga wuxuu ku yidhi ragguna beriga laba arrimood buu aad isaga ilaalin jiray ballanfurka waxa leeyahay fulinimadu ceeb bay ahayn ninka lagu sheegaana geeridu ka xigi jiray wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa niyow inaad faraskan ka soo degayaay halkanaan kada loobsanayaay aad qoortayga jirto adiguna sanadka dambe maalintaa maalinteeda bishaa bisheeda saacadda aad halkan timaado waan qoorta kaa jiro ninkii baa himta qoslu yidhi oo maxaynu qoortaba isaga jaraynaa maanta isugu kaan horraysee ee aad anna kaaga jaraya adna isaga jaraysa anna iga jaraysa markaasu waa ma fulaata wuu soo boday maaraad fulaygu leeyahay faraskii buu ka soo boday fulaa beriga baa laga xanaaq jiro haddaanad fula ahayn kadaloobsu yidhi aan kadaloobsaday qoortayga jaro niyaddiisa waxaa ku soo dhacday markaa kii dee lalahaa qoortayga jaro dee kaba jar haddaad ka jarto intuu fulo ka odhan lahaa ka dambe maxaa kaa qaadaya dee dhibaybe wuu kadaloobsaday ninkii birtiibu iska yara qaaday intaa qoortii buu ka jaray argagax qoortii intii halkaasoo kale ku dhacday ayuu dib u soo noqotay ninkii bay ku soo noqotay qoortii ninkii qosliyaadna hadloo yidhi ha ilaabin ballanteenna waynoo kal dambe iyo bishaa bisheeda iyo maalintaa maalinteeda iyo saacadda iyo aan halkaa qoorta kaaga jiro ballantana waan kuu sheego raggu ballanfurka ceeb bay hadiino ninkii talaa ku caddaatay arrintuu lahaaba soo fushado reerkiisiibuu yimo islaantiisi iyo carruurtiisi iyo tolkiibuu u sheegay arrintii marka afadiisii baa qosasoo tiri bas maxaad ka qoslaysaa markaasay tiri may qoorta kuu soo noqonaysaa bas maya dee waxba ha u tegin halkii maxaan ka doonay haddaad tagta hadduu qoorta kaa jaro yaa carruurta korinaya waxaan naqay maarad fulaygushaysa maarad ballanfur maase tiri damay anigu saasaan ka odhan lahaa carruurtiisina sidaa ku wuu diiday dee waa rag berigaa baayahay waktigii wuxuu isguraba waa la gaaray muddadii markii dhowr cisho ka hadheen ayuu faraskiisii soo qaatay wuxuu soo socda halkii wuxuu yimi iyadoo laba habeen ka hadheen muddadii dabeedna wuu dhaafay halkii wuxuu eegtay aqal uu martiyo reer uu martiyo labada habeen wuxuu arkay reer dee hodan ah oo meel degan oo xoolaha ilaa isiya looda waxay haystaan yaabsho reerkii uu martiya beerta reerku waa nin iyo naakiliya odayga baa marti qaaday habeenkii way casheynay igu casheynay yidhi xaggaad socotay arrintii buu u sheegay islaantii uu qabaa sidoo kale soo booday waa ninku martida ah oo tiri dee way sahlantay haddii ninkaasi isagu qoortiisa soo ceshan karayay ilaa adigu qoortaada ma ceshan kartide orda reerkaaga iskaga noqo
ما كسر وان كاح شلون يا مرتان كوا هني كاجر وكواك فدي هذا الكاميرا دم هاي ورن ما أنا فلا ما أنا بلنت فيلم كري وياه نكى بقى نشريه وكاد كان وين جيسيا بلنت ترى كوا أبغى والوقت في عن تايا تكبر نكوا كيلا لي هذا الكيسة جيسينا لبده همين هالكلام تشويسه هبين كنا بدكوا هذي ما نتي بانكي سوق كوا بريانكي المجال وحكم طولنا يعني ده كيسي شو قاسو قفت الدمر هاي بانكي سكسو هوايو حكوا خريضيو واحد ترسوم بانك وهايا ولقيت هطلع حرطان سيفتك وكلي جواننا في هاي سافسنا هذا رسي ولا يسوق كيسيان حد طالب كي بايك طبيها بي بريتو كل قرتي كشريه واسيت له هل كاسوني قدنكو هذا دول يسينا كسيو لا ما ولا حق الناس ما تسوي كذا وحاسس ورنا صاحبك يصير مينه دمر كي يبحي ويدي بالكيلو هلكي وكنكو سونك بيسيس سونك بحدايو ما انت تشوق ما لبادك عصر كي وقتكي ايو بحال هلكي مركب تجي مسنكي باب سي تاغن لكن مع سيفتي سيو طياره markaas istaago markaas waxa la caalay suunkan waxa aamin ma waa caalaa wuxuu waliyo waxa diin sawaaniga ay minkii baa horta geesi baa tahay ballantana waa dilaa sawaadiga yimi kadig farasko kada loofso aan ka jare bas bal hadda niwaaniga yimi ballantiin free joon suuq lagu qortaada waa soo ceshan karaysaa ma soo ceshan karo saaxib ciyaal baa iska kayda soo wad ala halka iska tafulayo ma na fula uu soo boodo uu forso ninka sabta bu kor qaad marbu qoortiisa u dhaweey dabaysha ma arkaya ninkan uu ka caliye mar labaad ku hadoo kor u qaaday markuu iyo bisu ka caliye mar saddexaad ku sara masuul istaag iska ful bil faraska iska tag ninkii baa waa taan taga waa maafsanta inaad waxaad iga warantaa waxa aad saddex jeer seeftan labana iga celisay mar igu sartay gafsuul waxa ka horeysa inuu isbarano wuxuu iska qaaday birti وابا نكو حالي مرتبه وها بس ورثه ما يقدر جا ku gartay wata geesi baa tahay labada jeer waxaan kaaga celiyay seefta mid waxay geesinimada talaabna waxay ballantii aad hagaajisay ta saddexaad saqacaan baa tahay wadaadii bad halka ka noqotay markaa tiibaan ka sarayay ballanta la ilaaliyo saqacaanimadan hal iska ilaaliyo waa sheekadeeni 100 sheeko iyo sheeko barnaamijkeeni waxaad ka daawan kartaayo kaliya تلفزيون كينا تلفزيون كقرنكا دلك جمهورية الصوماليلاند يا برنامج كان بقول شاكو يا شاكو هاي لابين بلنتين خصوصنا هذا كلن كين